xanuunada xididada wadnaha ischemic heart disease waa cudur ku dhaca wadnaha kaasoo keena in wadnuhu uu tabar yareeyo waxaana sababa qulqulka dhiigga wadnaha oo yaraada xanuunada xididada wadnaha oo shaqadoodu yaraato sidoo kale waxay horseedi karaan xaalada caafimaad oo halis gelin karta nolosha bini'aadamka waxaa jira waxyaabo badan oo ku nuglayn kara xanuunada xididada wadnaha oo ay ka mid yihiin sokorowga dhiigkarka heerka dufanka dhiigga oo sarreeya kolestarool cayilka dhaqdhaqaaq la'aanta jidhka iyo adeegsiga qaybaha kala duwan ee balwadda calaamadaha lagu garan karo waxaa ka mid ah xabad xanuun gaar ahaan markaad dhaqdhaqaaq badan samaysid dawakhaad ama miyir beeleed garaac wadnaha ah oo laga yaabo inaad dareento sida in wadnahaagu uu ruxmayo oo kale ama uu aad u boodboodayo neefta oo kugu yaraata lugaha ama anqowyaha oo ku barara si aad u ogaato caafimaad qabka wadnahaaga waa muhiim inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ula kulanto dhakhtarka wadnaha dhakhtarka wadnuhu wuxuu qiimayn doonaa si dhowna ugu kurgeli doonaa xaaladaada caafimaad wuxuuna ku siin doonaa daaweyn iyo la talin caafimaad khabiirkeenna xanuunada xididada wadnaha ayaa go'aaminaya habka loo marayo baaritaannada iyo qiimaynta natiijada isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanes qaybtiisa cudurrada wadnaha waxaa kuugu diyaar ah dhammaan adeegyada iyo baaritaannada wadnaha oo casri ah sida echocardiography oo lagu baaro wadnaha kaasoo muujin kara socodka dhiigga ee wadnaha iyo xididada wadnaha cath lab waa qalabkii ugu dambeeyay ee dunida laga adeegsado loona isticmaalo in lagu furo xididada wadnaha isla markaana ay soo saartay shirkadda caalamiga ah ee Siemens ee laga leeyahay dalka Jarmalka ahna shirkadda ugu fiican qalabka caafimaadka adduunka mashiinka stress ECG 24-hour Holter monitoring oo lagula socdo garaaca iyo shaqada wadnaha 24 saac Soomaali Suudaanes Specialized Hospital isbitaalka ugu fiican ee gaarka loo leeyahay